Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta nagu qaaliga soo dhawaada waa mar kale iyo fiidiyoo cusub. Maasha Allah, maanta waxaan idin wadaa qado yar oo caafimaad leh oo aad cajiib ah. Maasha Allah, fitamiinaad badan ka kooban, fudud, aad u wanaagsan haddii aad diet galaysidna ku wanaagsan. Maasha Allah, waqti badan aan ka qaadanayn diyaarinteeda oo simple iska ah. wax yar baa ku diyaarsanaysaa oo qado caafimaad leh. Xaajiga, hooyada, caruurta kulli u fiican. Maasha Allah, insha Allah intee ka kooban tahay isla arkaynaa iyo saa u diyaarinaya haddii Ilaahay yiraahdo. isla socod wanaagsan. Halkan waxaan ku haystaa 3 xabo oo barandhada guduudan iyo karood. baby carrot isticmaalaya dhowr xabo insha Allah. marka waxaan ku fiiqayaa barandhada bahashaas. qoyskaagu intuu dhan yahay hadba ka dhiganaysaa. Maasha Allah, barandhada marka insha Allah way fiican tahay. ovenka ku waxaynaya haddii Ilaahay yiraahdo. karootka dufan ma isticmaali doono saasa. dufanku ma fiicna, inta badan aan iska ilaalino maanta. caafimaadku waa muhiim. qofka caafimaadkiisa inuu ka fakaro iyo cuntooyinka aan cunayno. Maasha Allah, Ilaahay ha noo barakeeyo. inta haysana Ilaahay ha siiyo. barandhada hadda fiiqaya insha Allah, saa ku dhamaynaya. waa kana waa soo jarjaray. Maasha Allah, waxaan ku darayaa filfil yaraan ku darayaa. filfil shiidan waaye, filfisha isticmaalaya. cusbana waan ku darayaa, wax yar oo cusbo ah. qaado camal saliidana waan ku darayaa. waxaan isticmaalayaa insha Allah avocado oil baa qaado uga darayaa. waa qaado camal wax yar weeye, inay dhadhan u yeesho la rabaa. dufan badanna ma rabo insha Allah. saxankaanaan ku shubayaa insha Allah. foornada ku gelinayaa haddii rabbeena. halkan waxaan iyadana ka diyaarinayaa, gooni u diyaarinayaa. foornada la gelin doona fish. waxaan isticmaalayaa fish steakan. wuu diyaarsan yahay isagoo sidiisa ah baa uu kasoo saaray qaybta kore oo frozenka. marka waa kana saanaan ku gelinayaa marka. Maasha Allah, waxba igama baahna inaan ku daro. waa kana hadda ovenkii hore usii kululeeyay baan geliyay insha Allah. 30 ilaa 45 daqiiqo ku jiraya. qudaartan waa sii jarjaraya. waxaan isticmaalayaa xabadaas qajaarka ama cucumber, salarkaas iyo labada yaanyada insha Allah. intaasaas ku soo jarjaraya haddii rabbeena. waa kana Maasha Allah, salarkii markaan soo jarjaray beautiful kaas uu ku soo baxay. 3 wax buuna ka kooban yahay. marka hadda waxaan diyaarinayaa insha Allah salad dressing ama wixii aan ku darsan lahayn oo dhadhanka u yeeli lahaa. waxuu ka koobnaan doonaa malab, liin dhanaan, xabad liin dhanaan ah iyo avocado oil. haddaad rabtid waxaa isticmaali karaa saliid saytuun, olive oil-ka oo isticmaali karaa iyadana. liintii baa halkan kusoo tuujinayaa biyaheeda. Maasha Allah, biyo fiican ka soo baxay. malabka ku darayaa 2 qaado 3 qaado meelaha. iska yareyn karaa haddaad rabtid. caruurta rabaa inay dhadhan u yeesho.
si fiican u ruxayaa, saliidiina waa ku daray. Saddexdooda marka si fiican u ruxayaa hadda. subag camal ka soo baxaya insha Allah si fiican marka u ruxo. Asxaabta please subscribe channelkeeni. Gambalaalkana ku dhufsada saa u heshaan waxa soo geliya. Hadda waa ka soo saaraya fishkii iyo baradhadiiba waa diyaar labaduba maasha Allah. waa kana maasha Allah waqti yar waa cunto caafimaad leh waqti yar qaadanaysa maasha Allah aad cajiib ah weeye intaad wax clean garaysanaysid ama wax kale ku mashquulsan tahay kaasoo ku bislaanaysa ofanka intaad gelisid. Saladkii waxaan ku darayaa marka salad dressing aan diyaariyay. Haddii rabto isticmaali karaa kuwa kale oo diyaarka ah waxaad jeceshahay wax uun dhadhan kuugu yaala rabto adiga. Haddii si ku awlin simple ama caafimaad ka rabtid kaasa gurigaaga ku diyaarsan karaa. maasha Allah waa kana cuntadan waxaa ka soo baxday quruxda badan caafimaadka leh maasha Allah. inta badan aan iska yareyna carbohydrate inta badan caafimaad maaha maasha Allah. cuntooyin fudud oo caafimaad leh waa diyaarsan karnaa. waqti badan aan ka qaadanin jikada adoo waqti badan ku bixinayn haddana carruurtii iyo xaajigii iyo dhammaan family-ka wax caafimaad leh daasiisid maasha Allah weeye. insha Allah soo dhawaada asxaabta haddaa ka hesheen like asxaabtiina la share gareeya.